asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal iyo dhegeystayaal goob walba dunida aad ka joogtaan magacii waa maxamed faaraxshe waxaan fursad dahabi aan la yeelanay gobolka Garissa County mudane cali bunow qorone in aan xog yar ka helno oona ka wareysano xaaladaha guud in dawladeedba ka socotay maxkamad ku taala magaalada Nairobi iyo qaylidii inta badan ka jirtay magaalada Nairobi Governor cali bunow qorone marka kuwaad ku soo dhawow waana kaaga mahadcelinaa wareysigan gaarkeena siinayso dadku waxaad oga warantaa maxay ahayd arrintii dhacday xariga keentay dacwada keentay dad fara badan ay fasiraado kala duwan ay ka bixinayaan maxamed horta aad baad u mahadsantihiin inaad i wareysatiin oo dadweyne aan ogeysiino wixii dhacay wixii jiro runtii warun waa li dacweeyey lamaanta wax cad oo waxan baa ligu dacweeyey aan ku dhihi karo ma jirto dacwada ligu furayna waxaa weeyo mid hadda wax baad xaday lima dhihin wax faa'iido baa ku soo gaartay oo adiga ku soo gashay oo wax la soo dhacay lima dhihin waxaa la yiri dad adiga ku shaqeeyo yaa khalad sameeyeen khaladkay sameeyeen waxay ahayd lacag accountan ku jirtay oo account dawlad ay ka bixiyeen oo account kale dawlad ay leedahay geliyeen أنا هدي ما فريق كرتو دعوة أو ما أعرفي يعني أنت لك ما فريق كرتو مدة اللي بعدنا وحال يجري مشروعية الله طلق لي إن لم يلمريو يان لم يلمرين تانا وبين أو مشروعيه الأكثر الله طلق لي سد حوية لا ولا بوجي بقول كيف بقول ولا بوجي ووضل الرسي مال بيها نيتو ذاتك أي مران يمل dadka ay ku socdaan oo ay kan la dhisay lacagtoodii la bixiyay mid saddexaad way suuqa qorxay asagana nin walba arka oo 80% ama 90 waa la bogay lacagtiisana waa la bixiyay marka horto aad baan ugu wareernay waxa jiro iyo wuxuu ku umaaday xogaa tuhun waxa iska jiray annaka iyo dawladda dhexe waxa la isku hortaagnaa oo ahaa dhaqaalihii la qaybsanayay ee wadanka ee dawladaha 48 kamid ah nationalka iyo 47 loo qaybinay waxaana wax Kenya oo dhan ka wada dhaxay bay ahayd aan u soo noqono midaas tasiilaadkan ama shaqadan ay qabteen saraakiishaada adigu markay qabanayeen ay lacagta ka soo bixinayeen bangiga adduunka accountigiisi ay wad caafimaadka iyo biyo kala geenayeen adigu xukuma ka haysay oo tashmi kala yeesheen soo wax dhacay ما أنا هرتو وحل العقل ولا شقة كمالي شرعي كاونتيجا شرعي ودنكا جفنا حق السياسي يقوم بالدولة دمضح وجيه هي حق جود لكن وح الشغل العق وحيكون ما تبو ما شقة كمالي لما كان يقوم هيستانا واحد صحيح ذي واحد أقلاتي واحد الويدي واحد لقالته شذي يقوم هيستانا nimanka way u madax bannaan yihiin inay dawladdaas wixii loogu talagalay in la meel mariyo way u madax bannaan yihiin waxay sameeyaanna waxaa jira sanad walba auditor general wax la dhaho oo wixii xisaabaha baaro oo wixii khalad dhacay soo saaro wixii la haleeyay soo saaro wixii in wax laga qabto u baahan soo saaraan marka ani meel aan ka soo galay iyo meel aan waxa shaqo ku leeyahay ma jirto midaan lagu ma haysto hadda ma dacwadeeda ma jirto waa tahay dacwada waxa ku jirto kala leadership hoggaan marka misleedahay adiga county-gi waad hogaamin laadahay maxay tahay marka way xisaab baa laga hadlayay leadership waxa soo gali meesha horta midaas waa mid la yaab kale oo hoggaanka si horta lagu maxay ahayd tijaabiyo lagu fasiro oo hoggaankaada wuxuu xoog u leeyahay ma waxay ku xiran tahay qaylida aad samayso inta ruuxi aad qaraacdo inta ruuxi shaqaad ka bixiso inta ruuxi aad canaanato waqtiga aad soo toosto waqtiga aad hurdo waqtiga cunto si loo tijaabiyo ama sana loo ogaado hoggaankaada wax uu yahay horta meel lagu qoray ma jirto in hadda tijaabin karo oo ogaan karo hoggaankaada intuu dhan yahay
ma jirto. midda kalena hataa nimankan la leeyahay waad hogaamin weyse dambiga hadda lagu haystay yaaban asagaba caddayn. wanaga khalad waa la geli karaa, lacag dowlad way dhumi kartaa, lacag dowlad waa la musuqmaasuqin karaa oo meel walba dhici kartaa. laakiin hataa nimankan ay shaqeeyaan saraakiisha wax hadda lagu haysto oo cad oo la leeyahay kanay samaynin ama kanay qaateen ama kanay ka faa'iideen ayakana ma jirto. marka waxiiba wuxuu iskaga egyahay wax uun wax kaloo ku xiran wuxuu yahayna weli aanan garanin. waxaad sheegtay inuu jiray hardan hoose oo ahaa in dhaqaalo gobolka laga goosto oo aad is leedahay adiga waxa lagu dulmay culayska lagu saaray ee dagaalka lagu qaado inay tahay codkii shacabka gobolka ee Soomaalida ama NFD-ooduba aad noqotay oo sheegtay inaad ka dagaalamaysay lacag la goynayo oo xisub budata habeenkeeda xabsigaad ku hoyatay madaxweynuhuna oo shir sanad kala ah ayada dadweynaha bidaan. horta ma hadda waxa weeye arrintii doodii waxay ahayd iyo wixii la soo maraybo 3 bilood la soo dhaafay si fiican baa ku dhamaatay. waxayna ku dhamaatay sidii aan rabnay madaxweynaha oo mahad celinayna. dooda inta ka horo annaga gobol NFD haddaan nahnay waxaa lagu tala jiray ama lagu talinayay 7 bilyan oo shilin inay sanad walba naga dhunto. gaaris oo kale 2 bilyan inay naga dhunto yaa lagu talinayay. 2 bilyan hadday naga dhunto waxay nagu qasbi lahayd 1500 oo ruux oo maanta noo shaqeynaan ka bixino maadaama lacagtoodii la goostay. haddii meel 1500 oo ruux shaqo lagaga bixini annaka kama horgudi karno. wixii awood aan lahayn, wixii dood aan doodi karnay, wixii aan talageli karnay waa galnay. marka ugu dambana waxaan ogeyn uun haddii si unbay ku dhammaan doontaa. laakiin annaka waxay nala noqotay inaan qaylino, inaan ka hortagno, inaan runta sheegno. oo waxaan la leeyahay dhulkeena dad ma joogaano horta waa been. dadkeena waxa way badan yihiin laakiin bahalkan irinkaarka la dhaho ma qabaano. sidaa daraaddeed dadkan kuuraha ridaan ma badno. tasiilaadkiina looma sameynin oo meelihii lagu ogaan lahaa waxaa jirtay khudbad aad jeediso ahayd in isbitaaladii iyo iskuuladii taa waan kusoo wadaa dadka lagu ogaan lahaa dhaqaalaha kalena waxaa lagu qaybsanaya la yidhi lacagga isbitaalka haddii loo qaado waxaa la yidhi waxaa lagu qaybsanaya dadka isbitaalka tageen. haddii meesha isbitaal uuba jirin oo aan laga dhisin wax tegiba ma bale meelan jirin lama tegeyso. waxay ahayd intii isbitaal tegaysay in la dhaho ayaga meelay tagaan bay haystaan oo intaan waxba aan qabin in meel loo dhis ay tagaan. laakiin waxaa laga soo qaatay inta ruux ee isbitaalka tagtay intaas un wiha markaas khalad bay ahayd. laakiin haddii taas hataa ma hubno inay sababta ay tahay waa iska tuhun ilaa waxay ahaydbo ayadana si fiican bay ku dhamaatay oo maanta lacagna lagama goynayo sanadka dambo iyo lacag hadda naga goy ma jirto waa ku guulaysanay. isla arrimaha tuhunka mis leedahay in siyaasiyiin doonayay in kursigaaga ay kaa ceersadaan ay dabada kaa riixayaan oo doonayaan in ay ku qalanqadiyaan. oo taas horta shaki ma leh in waxaa jirta habeen walba markay seexanayaan intay ilaahay janno ka bari lahaayeen inay ilaahay ka baryaan inuu cali uun dhib la kulmo oo xafiiska uu ka baxo oo ayaga ay qaataan iyo ruux kale ay leeyihiinbo. marka taas shaki uma jirto way jiraan. laakiin haddii gabanaga sida shaqada uu kaga baxo ama lagaga bixin karo waa wax cad oo qoran oo petition oo in la geeyo. midda labaadna waxaa weeye un waqtigii la gaaro doorashada inuu ruux isa soo sharaxo waqtigaasna wuuba soo dhowyahay. marka haddii intaa ma jiraan ma dhihi karno aad bay u badan yihiin in aan waxba nala rabin. laakiin kuwaana shaqadoon bay watan annagana ilaahay inuu kuwa naga badbaadiyo inuu janno la siiyana annagana habeen walba la fadhina. waa tahay dadka afka ingiriiska aan garanaynin maxkamadda judgmentiga aan akhrin waxay leeyihiin cali gurigiisa lagu ekeeyey xafiis ma tegi karo gaarisa ma imaan karo ma shaqo tegi karo. haddii aad u fasirto dadkii aad walaac ugu faraha badan weliba taageerayaashaad waxay ka walaacsan yihiin waxaa weeye adeegii caliguna siin jiray hadda nama siin doono noo fasir. horta governor haddii lagu doortay oo maxkamad intii lagu geeyey aan jagadii governor laga qaadin horta wax shaqadaadii kaa hor istaagi karo ama wax ma jirto.
midda dhacday waxaa weeye nimankan sharci yar oo aada u yar oo ay isticmaalaan inay ruuxa markii la dacweeyo xafiiskii uu tegin sifo uu ma aragtay dadka hadhow shaahidka noqon lahaa iyo wixii shaahidnimo loo doon xafiis looga doon lahaa u hor istaagin ay isticmaalayaan ilaa hadda midayda oo kale wax hadda shaahid leh ama sano oo ruux waa wax ayaka istuseen oo aniga inaan hogaankii kasoo bixi waayo taana wax shaahid leh oo shaahid ruux noqon karo maba jirto waxaan igu kooban uun oo dee say u tijaabiyeen ayagun baa garani waxa shaahid ay keenayaan marka taasna waa khalad laakiin maanta shaqadeydii wax iga hor istaagi karo ma leh mideeda kalena hadda aniga xafiiskay gaaris hadda 5 bilood ma tegin waxaan u tegi waay horta waxaan meel marti aan ku ahay oo yaan xafiiskaygu ka dhisan meeshana dadkii lahaa waxa aad ay u dhibaataystaan dadka badan aan iimaanay adigu hogaamiye shacabku soo doorteen baa tahay meeshana administration maalba iskale security bay qabaan 300 ruux ay imaani waxay yihiin ma garanayno way argagaxaan dadka markay imaadaan aan joogo marka badi gurigeygu ma ka shaqeyn jiray hadda Nairobi xafiis baan ku qabaa asagana 6 bilood ma tegin halkan baan iska joogaa aan iskale marka shaqadeedii si hormay ku soconi wax hadda iska bedelayna ma jirto midaasi too dalilay xafiiskaada tagina waa iska khalad laakiin wax shaqadeedii u dhimi ama sana ay ka iga reebi ma jirto dad si hoos u fikiraya jiro kala tirsanayo oo baraha bulshada iyo idaacadaha maxalliga iyo isdhaafsanayo oo arrimaha qaar qabiil u bedelaya qaar qoys u bedelaya qaar jeclays u bedelaya ayagu kuwaas waxaad ku dheelayeen maadaama ay yihiin kulli dadka ay ku soo doortay horta arrinta waxay ku imaatay laba nin oo ilma adeer aan ahnay baa meelahanaytu dadka musuqmaasuq lagu baaro yaa madax ka hadee shaqadaana khibradooda may ku heleen wixii hadda ay qabtaan shaqadooda may qabsadeen wax hadda qabiil hadda waxaa la leeyahay samawada baa cali u tashaday oo shaqada ka bixiyey meel samool intuu isku imaatay cali aan dacweyn ama sana waxaasna waxay la imaatay uun dacwada la dacweey xafiiskan aan fadhiyo hadda xafiiskan aan fadhiyo oo maanta aniga geel jir aan anayo 100 neef oo hadda waxaan qabaa 200 neef oo geel ku hadda iska raacdo waxay dacweyn ma jirto kuwayga waxay abaar iga soo reebtabo ma iska daba socon lahaa marka taas waa khalad dadka maaragtay in qabiilka loo kala saaro shaqadana qabiilnimo lagu tilmaamo labada nin hadii sidaan aan u ogeyn waxa lagu dacweey inta aan maaragtay aan weydinaya maxay ku maatay dacwadeyda way kamid yihiin oo dawladda ayaga ka weyn iyo tuka yarba ayaga way weelisaa laakiin waxa aan leeyahay xaq qabiilnimo iyo qoysnimo ay ku fiirsadeen oo ku dacweeyeen ma jirto ma qoyskay ka dhasheen baa ka warhaya oo waxaan garab ugu ma jirto marka taasna dadweynahan iska dhaafaan oo aniga amadeyda waan ka soo bixi wax dambi aan ahayn waan ogahay waxaan lagu dacweeyay wax jira maaha marka dadkaas inay walaal ahaadaan oo anigana waxaan haysatabo sidaan aniga garanayo anoo wakiilahayga iyo kaashanaya iyo ilaahay saan uga soo baxno inay sugaan ayagana walnimada ay wataan rajinta la qabtaan maxkamadaadu inay si nadiif u soo dhamaato wallahi waxaan jiray horta ma jiray moogta ani dacwadeyda mid aan jirin ay taaniyaan aaminsanahay shalay wakiil baa u soo qoray council of governance oo yiri waxaan arkay dacwada cali lagu dacweeyay ininkana waa idin digaya waxaan lagu dacweeyayna wax rasmi ma aha ininkoo dhanna waa lagu dacweyn karaa marka waxaa dan idinku jirta inaad maxkamad weyn aad tagtiin oo arrintan aad ka doodin marka dadkii oo dhan bay irra gelisay ilaa hadda nin dambi baan leeyahay oo dambi baa lagu weeli oo qurbad igu jirto ma jirto laakiin hadee dacwo iska dacwo misleedahay rag badan oo adigu kala mid ah raadkaaga soo hayaan ayaguna sariirtaas ay xatay way jiraan sariirta weli oo hagaajiyay dhufay baan u gaday barkin baan u dhigay mara fiican baan u saaray marka nimanka gabanayaasha sawirkeeda u diray waxaa yiraahday waa soo socotiin meeshii sida aan ugu tagay si ka fiican baan yaan kaga tagay kusoo dhawaadaan ku yiri marka aan kula kaftamo xabsi ninkaan garanaynin habeenka asaga waxa darantay iyo sidoo ay ka xaaladdu soo yahay horta ani maxay ahayd meeshan dadka isku xiro
Soomaali wax dhan ma garanay jeelka waxaan moodaya Sooxili jeel waa Soomaali af Carabi baan u maray marka horta meel fiican maaha ilaa anigoo 20 jiro 1982 aan galay sheekada socdaadka marka hadda beriga waxaan ku fiicnaa wiil yarna waan ahaa hadda tan sariir baa jirta berigaan dhulka la seexanay beerkeygana beer iima weelin meesha gabal igu dhaco amba ciddayda ahayd marka meesha ayada iska beri wax banaan iga jiro reer iyo caruur iyo adduun iyo wax aan xoolada maba sii qabin wax aabbahay aan tirsanay ma ogi laakiin tan habeenkii aan 5 saac baan seexdaa kanay hadda markii habeenkii lagu berisi 2 saac baan seexday laakiin nafaas baan helay telefoonka iska damiyay waa iska seexday ilaa 6 saac aan seexan jiray waqti markii gaartay 8 saac barka waa iga dhamaatay marka horta meel fiican ma ahan hadii fulay aad tahay oo iska argagixi kartaa ilaa waxaas aan ima dhibaan waxaan wax ka cabsada ama aan ka dadaala intuu dhicin wax markuu dhaco aniga waa waxaan ku seexdaa maanta waagan sidan buu kugu beriyay ama sidan buu gabal kugu dhacay berina qoraxda way meeshii ka soo bixi jirtay waa ka soo beri qoraxda way soo bixi wixii ilaahay ku armaaninta kugu daray marka si fiican dadka reer Gaaris kuwii mucaaradka kugu ahaa iyo kuwii muxaafid kugu ahaaba in badan wax badan ba iska bedelay oo dad badan baa waxay dareensan yihiin maxaa anaga hogaamkeennii sidan loo yeelayaa suurtagal waxaa kuwa badan oo shalay adiga ku mucaarasnaa in maanta ay soo galeen ayagoo markaa dhibsanayo arrintan weyn dhibsanayo maxaad ku leedahay oo aad u sheegaysaa horta anaga bini aadmiga waan dad laciif baa iska nahnay ilaahay subxaana watacaala unbaa horta wixii noo fiican marka anigana siyaasi haddaad tahay cadow badan baa iska qabta marka waxaan ka arkayba meeshan waxaad khoof aad moodi oo khayr iska noqdaa jira ilaahay markuu wax kula dooni si badan buu wax kugu siin karaa marka cadowgii maaragtay ama dad wax iga tirsanayay ama sana in niyad xumaa ama sana wax iga sheeganayay ama sana ama mucaarad igu ahaa oo aan lahaa mid aad u doontid dadkan waa dad walaal lama kala maarmo oo igu qaadan lahayd bas sanad inaan doono ya ilaahay habeenku kali aan jeelo ku bari ya ilaahay igu soo wada celi anigana waan iscafinay anigana waan u mahad celinayaa sida garabka ay igu noqdeen ilaahayna waan u mahad celinayaa sida maartay dhibka yar siyaasigay wax isku hagaaji ilaahay baan maadinaya goorma Gaarisa aadina Gaarisa hadda dadweynaha dee waxaan rabay aniga Soomaaliya waxay tiraahdaa dawladda Kenya iyo maroodiba lama hor istaago wiri lama dhaho adigoo ogeyn bay iska kaadirdarayaan oo aad iska dhimani marka dawladdan aan isku hortaago oo aan hadda tuso aniga inaan ka guuleystay oo ma rabin oo aan oday baan hadda ahay dawladda waan ka soo shaqeeyay fikradeedana waan garanay laakiin dawladda nafteedaan kala tashado u sheegay haddii dadweynihii inay xoogaa kacsan yihiin inay rabaan inay arkaan inaan wax u sheego dawladdana waan isku afgaranay hadda inaan tago dadweynihin hadday soo dhaweeyaan anigana u waramo dadka qaarkoodna dad cadow waan iska qabaa oo leh weli ninka xabsiga ku jira oo 10 sano lama arkayo bal dadka inay arkaan banaanka inaan joogo waa u tagay rabaa hadda dilaayira aad u maasantay waxaad isleedahay waad ku korinaysaa maya waan dad badan oo Kenya joogo banaanka joogo Soomaaliya joogo lama madaxweyne ay la soo hadleen oo ay dhaheen waxaan kula qaban karno ma jirtaa gabana Sonko hata markii aan boonta sugeynay kursad kala bedelateen meeshii igu imaaday oo wuxuu yiri war boonta wax miya ka dhiman may waad mahadsantaan ku iri marka dadkaas oo dhan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo meel ay joogaan dadkan waxa weeye markii aad xoogaa dhib ku jirto bini aadam wuxuu jecel yahay in la aqoonsado oo garab la siiyo oo garab loo noqdo marka reer Gaaris Soomaali meel joogto muslimiinta meel joogaan u mahad celinaya marka aad bay u mahadsan yihiin shukran aad u mahadsantiin daawadayaal meel walba oo aad joogtaan kaasi wuxuu ahaa gobolka Gaarisa County Mudane Cali Bunow Qorane waraysi khaas oo khuseeyay oo kaliya waxaan la qaadanaynay arrimihii dhaceen iyo xaaladaha isbedelka insha Allah taala balan waxaan oo ah Gaarisa iyo amaan iyo nabadgelyo aad u mahadsantiin daawashadiina